halkaasi idin muuqata waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waa xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waa halka ugu daran ee laga ridayo rasaasta iyo hubka kala duwan ee lagu dabaaldegayo 1 Luulyo markii gobolada koonfureed ay ku xoroobeen Talyaaniga. Ya tahay daawadayaal Fagaara Production aan naga daawanaysaan rasaastii socota afarta jiho ee magaalada ay ka dhacaysaa rasaastu waana dabaaldega 1 Luulyo markii gobolada koonfureed ay ku xoroobeen gumeystihii Talyaaniga waana israaci labada gobol waqooyi iyo koonfur halka waqooyi ay xornimadooda qaateen 26 Juun oo aan ka soo gudubnay balse caawa waxa la taagan yahay 1 Luulyo munaasabadii ayaa goordhow soo dhamaatay oo madaxtooyada ka soo dhamaatay dabaaldeg ayaa magaalada ka socda magaalada caawa waxaad moodaa in dabaaldegyadu ay socdaan sidoo kale waxaad moodaa dhanka kale markaan u dhigno in magaaladii ay dinsan tahay oo cidla ay tahay halkaasi idin muuqata waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waa xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waa halka ugu daran ee laga ridayo rasaasta iyo hubka kala duwan ee lagu dabaaldegayo 1 Luulyo markii gobolada koonfureed ay ku xoroobeen Talyaaniga
daawadayaal Fagaare Production ayaa naga daawanaysaan sidaad maqlaysaan waxaa ka dhacaya magaalada oo dhan rasaas kala duwan oo afartii jiho loo ridayo waana dabaaldega kowda luuliyo goordhabeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa salaan ka qaatay munaasabadii xuska kowda luuliyo hadda ay soo dhamaatay sidaad u jeedaan rasaas ayaa dhacaysa magaalada caawa waa ay camiran tahay marka si loo fiiriyayna waa cidlo wax socdaa ma jiro marka laga reebo rasaasta dhacaysa oo aad moodo in afarta jiho laga ridayo kowda luuliyo waa markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga waana israacii labada gobol waqooyi iyo koonfur afarta jiho ee magaalada halkaas waxaa idin muuqata taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo halka ugu daran ee laga ridayo rasaasta waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo wasaaradda warfaafinta ka soo horjeeda ama ku taala waa halka markaasi ugu daran ee rasaasta laga ridayo weli waa la maqlayaa rasaastu oo halka ugu daran ee laga ridayo rasaasta waa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo halka laga ridayo waxaad moodaa in magaalada bular uusan ka jirin maadaama dalka uu saameeyay cudurkii coronavirus oo dalalkii ay kala xirxiran yihiin bularkii 26 Juunna sidaan oo kale ayay ahayd magaaladu oo si weyn looma dabaaldegin oo marka la eego bularka marka la isticmaali jiray ay ka doonaan jirtay halkan waa wadada madaxtooyada oo hotelka SYL saad u jeedaan halkaasi